Asalaamu calaykum. Soo dhawaada saaxiibayaal. Waa markale iyo muuqaal cusub. Muuqaalkeenan maanta waxaan kaga hadli doonaa sida sawirada background-kooda blur loo geliyo amaba shucaaca aad u taqaanid. Sidaan wada ognahayba in sawirada background-kooda blur la geliyo kaliya waxaan ku naqaanaa iPhones-ka iyo sidoo kale kombiyuutarada amaba kaamirooyinka. Balse maanta waxaad awood u yeelan doontaa in sawir kasta oo telefonkaaga ku jira aad blur gashan kartid adigoo isticmaalaya telefonkaaga. Haddaba kaasi hordhici maaye ku soo dhawow muuqaalka faahfaahsan. Kanaalka dadku cusubtayna subscribe dheh, video-gana like garee. Haddaba saaxiibayaal, markii hore soo degso application-kan ay ku qoran tahay After Focus. Application-kan adigoon isdhiibin waxaan kuu soo dhigay qaybta hoose description-ka ama video-ga hoostiisa. Halkaas ayaad si toos ugu la degi kartaa. Sidoo kalena Google Play Store kala soo degi kartaa adigoo ku qoriya After Focus. Haddaba application-kan haddii aan u guda galno waxyaabaha uu ku tarayo kaliya sawirkaaga ayuu ku qorxinayaa isagoo xagga dambe blur ku gelinaya. Tusaale ahaan dhowr tusaale ayaan ku bixin doonaa. Tusaalaha koowaad waxaan ku bixinaynaa sawirka xagga noo yaal. Sawirkan inkastoo blur yara gashan yahay haddana blurka ayaan kusii siyaadin doonaa. Haddaba application-ku markuu kuu soo dego laba mid waad isticmaali kartaa. Inaad application kugu dhifato oo aad halkan ka doorato. Halkan ay ku qoran tahay album inaad ka doorato oo kadibna aad soo gashatid. Sidoo kale habka ugu fudud ee isticmaali kartaa sawirka dul tagi. Sawirka markaad dul tagtid waxaad dooran calaamadda share-ta ee wax laga share gareeyo sawirka halkaas aad ku dhifan. Halka mar aad ku dhifato waa kan application-ku halkan ku soo baxay waad ka dhex raadinaysaa application-da kugu jira aad ka dhex raadin markaad aragto waad ku dhifan After Focus waa xagga noo yaal. Haddaba application-kan xaggiisa hore haddii aan idin sharaxo xaggan waxay ka dhigan tahay ay person ku sawiran yahay waa inaad qofka yaad dul marinaysa sidoo kale tan hadda waxaad aragtaa inuu casaan isku bedeli waa qalinkii aad qofka kaga saar lahayd background-ka. Kan labaad waxa weeyaan isna waa hadda doonaysid inaad saasoo kale dad tiraahdo blur inaad meel aad ilowdid oo kale tusaalahan oo kale sawirkii markaas halka walka ay joogo tanna san uga masmaxayo xaggaasoo kale intaan ka tagiyo intaan ka qaadmay oo kale haddaan doonayna ku celiyo isagoo khafiifa halkaan inta tago taas taxanta tago taa labaad ayaan meeshaan dooran meeshaan doonayo kadibna saas ku koriyaa background-ku. Taana waad fahanteen baan malaynaya. Kan labaad haddii aan isla eegno halkan waa qalin meelaha uu ka raaco kale tusaalahan oo kale markaad qofkii saasoo kale tusaalahan oo kale markaad qofkii saasoo kale background-ki tusaale saa looga saarayo tanna san uga saarayso intaasoo kale tusaalahan iga raacay. Tusaale ahaan intaasoo iga raacay. Intaasoo kale markaad doonaysid inaad ku dartid ayaad saa sameeyay qalinkaad saa u marin ilaa intaad doonaysid inaad ku gaadho. Sawir mid kalena ku sheegay application-kan waa application 100% blur-ka si aan laga dareemin in lagu geliyo laptop oo kale ama lagu geliyo iPhone oo kale. Haddaba waxaad sameeyay tan kale ku xigta halkan iyadna waa istiisadii qalinka taad mariso tan kaga masaxi doonta. Waxaan kale faa'iido male. Haddaba si aad blur-ka u geyso marka hore waxaad tagi doontaa halkaas ay tagi doontaa. Halkaas aad ku dhifan kadibna geerarka sawirka saa u raacin qalinka saasaad u raacin saa markaad u wada raaciso saas ku soo xidhi waxaad aragtaa sawirkii oo dhan hadda casaaday. Saasoo kale markaad ku soo wada raaciso waxaad imani markan tan labaad ayaad markan iman tas taxad ban jeed tas taxad ayaad iman. Haddaba waxaad way gacantaada saa u marin qalinka inta waxaad aragtaa inuu ka masaxmay halkan sanaad u marin halkan sidoo kale saasad u marin meelahan uu ka raaco waxaad sameeyay qalinkii aan ku sheegay baad soo qaadan wad marin meelaha inta saa u marisid halkaas saasad u marin sidoo kale xaggan saasad u marin kan saasad u wada marin meelaha uu ka raaco dhan qalinku meelaha uu background-ka raaco dhan saasad u marin meel walba background-ka raacay wuxuu ka dhigi doonaa very beautiful. Halkan oo kale muraayadana uu yara raacay
iyadna waad marin meel kastu ka raaco waad marinaysaa ka tagi maysid si uu sawirku dhow kala kaan u noqon. meel walba waad marin meeshu ka raacana adigoon isdhibin qalinkan aad soo qaadan waad ka yar masaxin. ku dhibi maayo application-kan waan hubaa waa application-ka ugu fiican ee wax blur lagaga saaro. sawirkii markaad blurka saa uga saartid ee dhamaystirtid inaad arag inuu meelahaas aad iska ilaalinaysa meelahaas oo kale. haddaba markaad saa u dhamayso waxaad tagi halkan aad tagi next ku qoran tahay. next maraad ku dhifato wal fiiri hadda next maraad ku dhifato waxaad aragtaa sawirku inuu sidiisa waxa iska bedelay. haddaba si aad ugu sii siyaadiso blurka waxaad imanay halkan ay ku qoran tahay blur. halkan aad iman waad ku dalay line taad rabtid. ilaa inta aad rabtid ku dalay hataa doonto boqolkood dhamaystirin. sidaa markaad u wada dhamaystirto hadda waxaad aragtaa sawirku inuu noqday very beautiful. haddii aad u fiirsatid geerarka lagama dareemayo isma odhanaysid sawirkan waxaa lagu saaray application. waa qurux badan yahay runtii sawir aad u qurux badan uu yahay. sidoo kale halkan ay ku qoran tahay muhiimada waa inaan blurkaas baynaga tahay effect. halkan ay ku qoran tahayna adiga waxaan tijaabin doonaa halkan filterskan waxaan dhamaantood waxaan sawirkaaga filter kaga bedbedelaysaa. waxa kulli faa'iido male waxaan waa sawirka wuxuu ka dhigdhigayaa kartoon nooc kale oo adiga waxaan oo dhan hadhow toole eegi doona. muhiimadu waa inaan blur sawirka gelin karno. sawirka markaad blurkiisa u geliso waxaad tagi halka ay ku qoran tahay save. halkaasaad ka save gareyn kadibna yeesbad oo dhan midnaan ku sheego application-kan offline kugu shaqeynay waa application aad u fiican runtii. sawirka hadda way noo dhameeyay bal aan ka soo fiirino gallery-geena. hadda sawirku saas oo ah originalkii waa ka sawirku masha Allah qurux ayuu noqday. blurna uu galay runtii aad u qurux badnaaday. imikana sawirkan lamaanaha ayaan ku eegaynaa. share ayaad odhan sidii caadada ahayd. share markaad tiraadid application-kii baad ku share kareyni after focus. sawirkii buu ku keeni qalinkii baad tagi halka personkii kadibna saasad u wada marin. sawirka markaad saa u dhamaystirtid calaamadaas next ayaad ku dhifan. next markaad ku dhifatid sawirka hadda saas ayuu noqday. blur baa galay runtii waan ku sii kordhinaynaa. sawirku hadda wuxuu noqday beautiful sawir aad u qurux badan. sawirkii horena 100% uma dhigmo. haddaad u fiirsatid xitaa timihiisa meel walba lagama fahmayo blurka meel alla meel xitaa blurka waxa laga yaabaa meelaha application-nada qaar marka lagu gelinayo blur sabig saarto kale inuu meelo de ka raaco sawir laga fahmo laakiin kan la fahmi maayo. sawirku wuxuu noqday sawir aad u qurux badan runtii. kan markaad dhamaysidna save ayaad share ayaad odhan doontaa. application-kan waa application runtii u boogi doonto. waa application-nada ugu fiican ee wax blur lagu geliyo. wuxuu la tartami karaa iPhone-iska. sawirku saas ayuu ahaa bal u fiirso saan ka dhignay masha Allah qurux. mid kalena aan idin sii raaciyo haddaad rabtiin sida sawirada loo qurxiyo oo kale sidoo kale haddaad xiisaynaysaan sida sawirada loo qurxiyo sida sawirkan oo kale. hadda sawirkan waa sawir aad u qurux badan run ahaantii waxaa la oran karaa waa sawir lagu qaaday camera. haddaad rabtiin sida loo habeeyo sawirada noocana muuqaal ayaan kasoo diyaarin doonaa muuqaal dhammaystiran. commentiga aad fikradaad nagula wadaagi kartaa. sawirkan saas waa markii hore haddana saasa ka dhignay. weliba waxaad ku habeyn doontaa teleefankaaga Android adigoo isticmaali doona application. haddaad nagu cusub tahay hadda nagu soo biir adigoo kanaalka subscribe dhahaya videogana like garaynaya. aad iyo aad baad mahadsan tahay. intaan muuqaalkan iyo muuqaal ku xig ku kulmayno waxaan tiga tegayaa. salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.